ugu dambeyn kiiskii Aisha ee gabadhan geerideeda wax sababay waa la ogaaday haddaan ogeyn Aisha ku dhacay video u dambeeyay hada soo dhigay soo fiirso saarinta ula socotay maxamed ilaa uu naxariisto geerideeda aad lagu waraysnay qofku dilay lama ogeyn wax dilay lama ogeyn waxa la dhahaa ama eeda istisho qof daaqad inuu soo galay oo daaqada oo ka dilay qof inuu amaad oo dilay oo baxay aad baa lagu waraysnay even xataa waxa la dhahaa familkeeda qof kamid ah dilay waxa la soo xaqiijiyay qof familkeeda kamid ah inuu dilay qofku dil waa walaasheed waxaan loo magacaabaa xafsa wajigeedana waa kan hadaa hore u arkin wallahi waa arin aad loogu naxo kasma filanaynin qof familkeeda waliba walaasheed inay dilayso cid filanaysa mumleena inay jirto laakiin subhanallah oo way dhacday walaasheed ayaa sababtay geerideeda okay marka hadda markuu su'aal isweydiinaa waxay tahay sababta ay walaasheed u dishay maxaa sababay maxaa keenay sheeg in Aisha ay ahayd gabar shaqaysato oo business woman ah kaliya businesskeeda bas ma shaqeyneen businesska familkeeda oo Eliin way kala shaqeynaysay waxa taa war soo gaar in Xafsa abeed kala hadashay booska hadii Aisha haysato meesha ka shaqeynaysay in loo wareejiyo ee waalidiinteeda ay ka diideen soo taasna sabab karta in lacag iyo waxa isku haystaa lahay admayni waa maseer basically walaashid ka maseerta ee lacag ee walaashid u dishay marxuumad inta dhima goor waxa la soo sheegay ayaamaan roona quraan la saaray ee xanuunsaneed oo la soo sheegay in la sixiray ee sixran tahay laakiin si la sheegay marxuumadu waxay ahayd qof xaafid quraan ah qof quraanka fahansan qof diinta aad ugu adag maalin ilaahay keenay al-bukhari ayay isaar jirtay afkeeda ayaa la sheegay inay dhahday sixirku waa ku tageysay laakiin maan gacanteeda sababtay kiiska hadda meesha soo maraa xabsada xabsiga ku jirta wixii loo xukumo doon ee muteysa doonto waa arki doona wixii soo gudbinaada insha Allah waa in soo socodsiinaa